kulankan isxoguraysiga iyo soo dhaweynta madaxda xisbiga cadaaladda iyo daryeelka Ucid oo halkayna la fadhiyo Gudoomiye Faysal mudane Gudoomiye anigoo ka wakiila jaaliyadda especially Westland Somaliland community Gudoomiyihiga sareeyay jaaliyadda Cabdulla Saalim noo fadhiyo waxaan kugu soo dhaweynaynaa in aan caawa halkan diyaar dadka kugu ah ee fadhiya ay yihiin jaaliyadda reer Somaliland oo xisbi walba iyo cid walba leh laakiin caawa ujeedada aanu halkan kugu qaabilnaa ay tahay si loo ilaaliyo waxa la wada leeyahay oo qarannimada Somaliland iyo magaca Somaliland inaanu tusno anagoo xisbi walba ah inaanu madaxda Somaliland ka timaada haday tahay xisbiyada qaranka iyo haday tahay xisbiga talada hayaba aanu si wada jira oo magaca Somaliland wax ka hooseeya anaga markaas runtii aanu ka ilaalino si midnimada iyo wada jirka loo adkeeyo Faysal waxaan u aqaanaa inuu yahay dimuqraadiyaddan aynu ku faano runtii dadkii dhidabada u aasay ee Somaliland ka bilaabay hormoodkoodii inuu yahay ay hortaasaan u haystaano waxa kaloon ogahay oo aynu wada ognahayba dhibaatooyin fara badan oo dalkeenu soo maray markii ay noqotay halla dadkii u kacay ee ummadeena badbaadiyay inuu hormoodka ahaa taasina marxaati baynu ka wada hayn horta labada arrimood iyo inuu yahay difaaca ugu horeeya ee dalkeena difaaca ee markiiba ka hadla arrimaheena cidii allaaliye cidii saad inoo soo doolaashaba buustahayay inuu ugu horeeyay baan ayaan taana marxaati baan aynu ka wadanahay annaga civil society ahaan oo dhex u ah xisbiyada inaanu balbilowno jawi cusub oo ah in la isku xidho siyaasiga iyo shicibkii oo markaa aanu isleenahay maxaa la yidhaahay dhaqanka siyaasadda Somaliland bal inuu ku kobco oo markaa siyaasiyiinta iyo shicibku xidhiidh isla yeeshaan oo in the long run laga baxo siyaasigan reerka ku tashanaya maxay heeday reerka codka ka raba bal inuu individuals shakhsiga Somalilanderka ah uu isiraaho qodbadaadu shakhsiga Somalilanderka ha gaadho anigu xisbiyada Somaliland gidda waa taageersanahay mid kasta waan taageersan sababtoo taageersan waxa weeyaan asloon asu Somalilandnimada wado waan taageero waxaan leeyahay si maashaha timaadeen oo ku maasantihiin dadku waxay moodaan mar hadduu qofka xisbi ka tirsan yahay xisbiyada kala tagi karay simple waa maxay waa wax inaga wada dhaxeeya waa madal inaga wada dhaxaysa lambar bileeda oo gooniya ma leh xisbiyadu waa reer Somaliland weey sababtan caaw u yimid aan doonayna in Gudoomiyaha maadaama marti nooga yahay inay ahado ku soo dhawo Gudoomiye maadaama ma garanaysaa wadan aan ahay de xisbigayga waa xisbigayga weey marka waxaan wadnaa waxa weeye inaynu inagu homework badan inaga Somaliland waxaan sameyn karnaa inaan tan viable state ka dhigno Soomaaliya wax ka qabano inaga sidii qiiqi istawo wareegsanno si wax loo hagaajiyo waan ku jirnaa idinkan waa mahadsantiin cunto fiican baan siiseen marka waxa weeye aniga waxaan ku tartaamayaa tan imka wadaan wada waxaad imka sameynaysan 18 May 18 May-ga petition qora si bariga aan geynay down street-ka si kastaba haatee xisbiga Ucid oo ka mid ah xisbiyada saddexda xisbiya oo tartamaya laba jeer hore uga soo gudbay marxaladii la soo maray ayaa la filayaa inuu kaalin weyn ka qaadan doono doorashadaas Axmed Awil Ismaaciil Somsa TV London Hayes